aad baa maayarka iyo taliyaha ciidanka aaga taleex ay u mahadsan yihiin run ahaantii wax lagu xamdi naqaa in aanu taleex oo nabada oo aanu amnigeeda gacanta ku hayno aanu maanta joogno waxaan filayaa taleex maamulka khaatumo state waxa jooga madaxweyne indhasheer ciidankii waa joogaan nabadgelyadeeduna waa mid go'aan naga ah in aan ciddii ku soo xadgudubta aanu ka difaacno run ahaantii waxaa jirtay cabdiweli kaas oo madaxweynaha maamulka puntland ah doorashadiisii kelmadii uu ku galay waxay ahayd in uu raadinayo nabad inuu raadinayo inuu maanta kuwii ceelka ku riday ee isagu eedeynayay ee faroole iyo cabdisamed ugu horreeyeen uu maanta la tashado oo kuwii dhiigii cabada ahaa ee khaatumo madaxda ka ahaa laakiin ahdigii ay galeen ka been sheegay ee axmed karaasho horeeyo inuu yiraahdo maamulkii baan ku soo direynaa waa mar subxaanallah weeye waxaanu ka digaynaa oo digniin kama dambaysa ka samaynaynaa in aan gacan ku dhiiglayaashii lagu soo celin aanay ka qayb dhigin maamulkooda haddii ay maamulkooda wax kaga daraanna wixii ka yimaada jawaabtooda iyo mas-uuliyaddooda iyaga hadhow qaadi doona ninka la yidhaahdo cabdixakiim maxamuud xaaji cumar cami baabul waxaan leeyahay cabdisamed baa kursiga aad ku fadhiyi jiray meesha uu maanta fadhiyana waad og tahay waana dembiile tolkiina dembi buu ka galay weliba bartii ha fadhiisan oo ha soo dhowaysan kuwa isaga ka saaray saaxadda yaanay adigana saaxadda kaa saarin waxaan waa maalmo wayna dhammaanaysaa maalmaha wanaag ku fadhi baan ku waraacadda waan maqlayay maanta laascaanood buu yimi khaatumo uu ka hadlay baan maqlayay wuxuu yidhi waa mucaarad waa nasiib darro waraacadda isagaa horta mucaarad ahaan jiray wuxuu ku hadli jiray waa la ogyahay haddii ninku duuni raac yahay oo maalinta uu kursiga ku fadhiistana lahjad ku hadlayo shilinku ka hadal siinayo horta aad bay u xun tahay waan maqlay cuqaal baa ka hadlay وقاشاasi si fiican bay u hadleen waxay yiraahdeen adeerdikuna Soomaaliland baa tihiin annaguna khaatumaan u nahay wala maamul baa tihiin isagu wuxuu yiri khaatuma ma jirto aleela Soomaaliland baan jirin baanu leenahay waraacade waana ku garanaynaa waana mahadsan tahay hadalka aad tiri maamulkii insha Allah wixii weekan ka dambeeya ayaa waqtigii taleex la isugu iimaanayay aanu ilaaminayna waa la isugu iimaanaya taleex runtiina qabanqaabada iyo hawsha iyo say u dhacayso waa wax aanu ka hadlayno airportka nabadgelyadiisii way sugan tahay magaaladu way u diyaar garoobaysaa waan soo dhaweynaynaa nin kasta oo dhulbaxanta oo khaatuma oo waxaan xitaa maqlay rag isu sharxay madaxweyne waan soo dhaweynaynaa Salmaan Dheere inuu madaxweyne noqdo aad baan u soo dhaweynaynaa waana mahadsantahay kawalaado waraacada waxaan ku oran lahaa waraacada wuxuu la asxaanoodka iyo waxaan leeyahay awala la bariday moorada ka aragtay warka kale oo waraacada markaanu burca gaadhno ayaanu jawaabteeda isaga ka sugi doonaa waraacada anu halka ayaan kaga